dhalinyarada maamulka gobolka Banaadir Cumar Cabdiraxmaan Macu Cumar Faaruq ayaa kulan casho ah u sameeyay gudoomiyaasha dhalinyarada maamul goboleedyada dalka kuwaasi howlo shaqo u jooga magaalada Muqdisho waxaana kulankan la saga xog wareystay xoojinta doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dadaalada nabadda iyo cadaaladda iyo xoreynta goobaha kooxda qawaariinta ee dalka kaga sugan yihiin. Qaar ka mid ah dhalinyarada dowlad goboleedyada oo goobta ka hadlay ayaa marka hore ka mahad celiyay maamuuska gudoomiyaha iyagoona ballan qaaday in abaabul dhanka horumarada ah ka bilaabi doonaan deegaanada ay ku sugan yihiin. waa ku faraxsanahay asxaabi waxaan u maleynayaa inaysan xal noo ahayn markay hay-ad noo yeerto xamar nala keeno inaan wax isdhahno kadib intaan noqono la kala les waayo xal noo ma aha. dalka dagaal ku jira dowladaheena waxay nooga baahan yihiin garab istaag waxaan nahay xoogkii dhammaaya dalkan dalkan horta wuxuu ka hagaagi karaa dhalinyarada markay sidaan ay iskugu qalbi xaaran yihiin ee ka shaqeynayaan horumarka iyo dowladnimada waxaa la gaari karaa wadiiqo aad u fiican ee fafaalo fiican. gudoomiye gobolka Banaadir markuu hagaago waxaa hagaagaya guud ahaan gobolada Soomaaliya oo dhan ama maamul goboleedyada. waxaan bulshada Soomaaliyeed ka nahay in ka badan 75%. marka haddii macnaha nin waliba uu ka soo baxo qaybta yar uu ku jiro 4.5 ee qabiilka ah oo ismaado goobta weyn ee dhalinyarada magac dhalinyarada u soo istaago horumar badan uu sameeynaa haddii la yiraahdo. aniga ku hadlayo magaca gudoomiyaha dhalinyarada state-ka ee Jubbaland fariinta gudoomiye aad ay kala gaarsiinayso mar walba dhalinyarada state-ka iyo gobolada iyo degmooyinka waxaan ku leenahay intaas in ka badan oo ku maasan tahay waan ka mahad celinaynaa. mar kale anoo ku hadlayo magaca guud ee gudoomiyaasha dhalinyarada degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaha afkiisa mar kale ku hadlayo haddaan aanay dhalinyarada gobolka Banaadir waxaa idin leenahay soo dhawaada gobolkiini markaa idin leeyahay gobolkan Banaadir cidna idinka ma xigto caasimada guud waaye kuwa soo dhaweyneynaa sharaf iyo karaama leedihiin insha Allah waxaan rajeyneynaa tookada xigta inaad ku soo booqan doono isteedadiina. gudoomiyaha dhalinyarada maamulka gobolka Banaadir Cumar Cabdiraxmaan Macu Cumar Faaruq oo ugu dambeyntii munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyay dhalinyarada inay yihiin laf-dhabarta dalka loona baahan yahay in la iska kaashado xoreynta goobaha kooxda qawaariinta ay ku sugan yihiin. marka hadduu la yiraahdo soo dhawaada mar kale meel idinka jecel yahay timaadeen dad aad mataqaanaa idinku qalbisan idin calolfiyo ayaa maxaa la yiraahdaa magaaladan idin joogo hadday yihiin dhalinyarada si guudna dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa la dhihi karaa waa xooga caafimaadka qabo ee hadda mataqaanaa bulsho ahaan dalka yani ku harsanaa la dhihi karaa. marka waa muhiimad weyn ee noo leedahay iskaashi iyo maxaa la yiraahdaa wadajir inaan anagu sameyno gacmaha isqabsano. waxaa ka warqabtiin dalkeena dhibaatooyin badan maxaa la yiraahdaa dowladana dhacaya dagaal ayaa maxaa la yiraahdaa labadii sano oo la soo dhaafay lagula jiraa arxalaabayaal oo magaceena dooriyeen oo maxaa la yiraahdaa magaceena xadgudub ku sameeyeen saad ka warqabtaan. runtii waxaana ahayd nasiib darro inaan intaan maxaa la yiraahdaa sii fiirsano